masaajid isagoo ah gaari ayaa haddana dhanka kale wuxuu noqon doonaa masaajid oo uu ka ballaaran doonaa sidaad arki doontaanba qaybta dambe videoga. wuxuu hadda injineerka ama makaanigani uu u socdaa inuu dejiyo wiishkii lagu kori lahaa ama jaranjaradii lagu kori lahaa gudaha. dabcan albaabkii dambe ayaa furmay, kaasi kor buu u qaadmay. marka albaabka la furo waxaa soo degi doonta jaranjaradii ood aragtaan saad u jeedaan. jaranjaradaasi marka ay soo degto ee dhulka timaado wuxuu haddana guda geli doonaa oo uu shaqadeeda bilaabi doonaa in uu furo labada dhinac. hadda waxaa baxay dhanka kale waa qaybtii ballaadhinta ama dheeraynta ama weynaynta saad u taqaaneenba. wuu kala baxay gaarigii, wuxuu isu bedeli doonaa masaajid aad u weyn. waa gaarigii aad arkayseen ee socday. wuxuu leeyahay qaybtii weysada oo lagu weyse qaadanayay. wuxuu iyana leeyahay qaybo kale oo gudaha ku yaala. maasha allah, waa wax ku soo kordhay adduunka. dabcan gaarigan oo kale waa jiray, laakiin ballar ahaan iyo baaxad ahaan inta lala ekaysiiyey ayaa waxay keenaysaa iyadana xiise gaar ah oo aan loo xisayn. waxaynu gallay gudihii masaajidka. waa dabcan gaarigii baynu ka sheekaynaynaa. gudihiisu waa sida tan, ballaarka iyo weynankaba waad aragtaan. wuxuu leeyahay qaboojiyayaal gudaha ku yaala oo aad dareemayno gudaha masaajidka markaad ku jirto wax kulayla. aad iyo aad ayaa wax loogu farxa ay tahay in laga dhigo. dadweyne aad u fara badan ayaa duubanaya soo xiisaynaya. dunida islaamka oo dhanna waa wax laga xiisaynayo. maasha allah, dadku way weyse qaadanayaan haddana.